waxa weeyaan maadaama ka baxay bahda singalnimo aan ku biiray bahda abanimo aan ku biiray ama bahda faamiliga aan ku biiray. Waxa uu ahaa meher qiimihiisa wata, qof waliba ayaa hambalyo gaar ah u diraya lamaanayaashani. Dad badan waxaa suurtagal u noqotay inay ka qayb galaan munaasabadda meherka Haykal iyo sidoo kale Maria. Kuwa aan ka qayb galin isla markaana aan xaadirka ku noqon howlkana waxay ahaayeen kuwa hambalyo ugu diraya baraha bulshada. Maalintooda qof waliba ayaa farxadda la qaybsaday, waxaana ay u ahayd maalin qiimo badan. Laakiinse Haykal ayaa saacado kadib waxa uu mahadnaqay boqolaalka kun ee qofood isla markaana siyaabooyinka kala duwan hambalyada ugu soo diraya munaasabadda meherkooda. Waxa uu sheegay Haykal in dadkaas ay yihiin kuwo qiimo badan. Waan dareemi karnaa in maalinteena qaaska aad nala qaybsanaysaan, sidaa daraaddeed waxaan idin leenahay waad mahadsantihiin. Sidaas waxaa yidhi Haykal. Mid ka mid ah kaalmaha suugaanta isagoo cod degan ku luuqeynaya ayuu sidoo kale hawada waxa uu u mariyay gacalisadiisa fariin kooban, waxaana uu ku yidhi sidan: wiil gabo garad wacan gacantiisu furan tahay marna gacal wadaagta hadduu calafku ku galo. dhinaca kale Haykal ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay la midoobitaanka gacalisadiisa dunida uu ka doortay ee Maria, waxaana uu sheegay inay tahay qof qiimo badan isla markaana deganaan ay ka muuqato. Waxa uu sheegay in waqti badan ay wada sugayeen maalinkani, laakiinse Alle uu ku simay isla markaana suurtagal ay noqotay waxay rajeynayeen, taas oo ahayd in maalin uun ay arki doonaan meherkooda u dhacaya. Waxa uu sheegay Haykal in boqoradda isteelka uu ku doortay astaamo badan oo wanaagsan isla markaana ay habboon tahay in qofka dumarka lagu xusho. Haykal waxa uu sheegay in sidoo kale u mahadcelinayo dadka fariimaha u soo diraya, kuwaasoo u soo diraya hambalyo la xiriirta munaasabadda meherkooda oo qabsanta maantay. Waxa uu sheegay Haykal isagoo muuqaal ahaan ka duunaa maalmihii hore isla markaana farxad badan muujinaya: waxay ii tahay maanta maalin qaasa, taariikhda diiwaankayga ayayna gashay. Waa maalinta la midoobay qofka dunidan ka doortay ee Maria. Waxaan horaan la soconnaa in lamaanayaashani xiriir jaceyl oo aad u qoto dheer inuu soo dhex maray, isla markaana xiriirkaas uu ahaa mid qofba qofka kale uu ka lahaa hami la xiriira in mustaqbalka uunay noqdaan lamaanayaal nolosha wadaaga. Taas way u suurto gashay, laakiinse waxaa dad badan ay filayeen isla markaana ay islahaayeen talow xiriirkan baraha bulshada miyuu ku ekaan doonaa mise ma noqon doonaa mid dhaba. Laakiinse labada lamaane ee xiriirkaas sameynaya ayaa ka dhabeeyay isla markaana tusa dadka inay yihiin kuwo nolosha iyo sidoo kale qiimahooda waqti badan ku wada riyoonayay, riyadaasna Alle uu u suurtageliyay inay u noqoto mid u rumowda labadooda. Hambalyo ayaanu leenahay Haykal iyo sidoo kale boqoradda isteelka, laakiinse magaceedu uu yahay Maria. dadka horta tiradaasi ka badan dadkiisu hambaliyo waxaan leeyahay halkaa qalbiga gacanta waa qolfof moogtahay inaga tur gacanta markaa qalbigaas idin kala salaamaya, idinka mahad celinaya. Ana soo koobi karin mahad aana soo koobi karin wallaahi. aad baa u mahadsantihiin, aad baa idin jeclaa, intay jeceshiin ka badan idin jecel. sharaf korkiina dee.